aabe gabadhii isagu dhalay 3 caruur ka dhalay oo yani maxaa ku yiraahdaa wax diinta ka baxsan ah warkaas tani waa dhacdo aad u fool xun waa aabe Soomaaliyeed oo sheegay in uu gabar u dhalay u galmooday kana dhalay ilmo dhacdadan foosha xun leh ayaa ka dhacday magaalada Kismaayo ee Jubbaland intaas kadibna ciidanka booliiska Jubbaland ayaa gacanta ku soo dhigay shaqsigan sheegtay falkan foosha xun ee argagaxa leh waxaana ay boolisku weydiiyeen su'aalo ku saabsan falkan uu afkiisa ka qirtay wuxuuna ku jawaabay sida tan waxaanse muuqaalka qaybtiisa dambe idinkugula wadaagaynaa sababta ka dambeysay falkan iyo waxa ninkan ku khasbay inuu sheegto inuu ka ilmo dhalay gabar uu isagu dhalay iyo waxa ka dambeeya intaanan u gudbin ila daawo muuqaalka ninkan waxaan isticmaalaa aalada TikTok oo ay u taqaaneen magaciisa Cabdirasaaq Wamo ayaan hore waxaa dhacday inaan video aan soo geliyay barkeeda TikTok anaa hadalada fiirsanan ku soo hadlay taliyo amar uu ka bixiyay ninkaas meesha uu ku sugan yahay iyo halka yani maxaa ku dhahday barnaamijkaas ka soo sameeyay isagoo markaas warbixintiisa ay ahayd meelisan joogin ee magaalada Kismaayo ah in arrintaas ka dhacday aabe gabadhii isagu dhalay 3 caruur ka dhalay oo yani maxaa ku dhahday wax diinta ka baxsan ah warkaas oo ahaa midaan saliya raadi midna lahayn isla waqtiga hantaas markay booliiska soo gaadhay booliisku waa ka howlgaleen ninkan wuxuu sheegay inaysan jirin xaqiiqna aysan ahayn in uu ka ilmo dhalay gabar uu isagu dhalay wuxuuna sheegay inuu isaga kaftamayay isagoo TikTok duubanaya wuxuuna ujeedkiisa ku sheegay inuu raadinayay caanimo isagoo u arkayay inuu sida tan ku heli doono dad badan oo barta waana dhacdo iyo fal naadir ah aan laga filayn inuu ku hadlo qof damiir qaba oo aan waalnayn laakiinse dhibaatada ugu weyn ee maanta haysata dadka isticmaalaha aalada TikTok waa in ay si walba oo ay ku heli karaan caanimo ku raadinayaan taasi oo aakhirka gelinaysa meel aan fiicnayn waana arrin khatarteeda leh si kastaba ha ahaatee ninkan waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska Jubbaland lamana oga waxa ay ka yeeli doonaan iyo in ay maxkamad saari doonaan laakiinse waxa xaqiiq ah haddii aan dambigan lagu qaadin inay dhici doonaan falal kale oo ka sii fog waana mid u baahan in si dhab ah loo wajaho daawadee sida wax kasta oo arrimaha noocaas oo kale taa oo bulshada aan dhagteeda iyo sumcadeeda iyo maqalkeeda midna ku wanaagsanayna waxaan uga digaynaa asxaabta dhalinyarada ee TikTok iyo aalada social media isticmaasha walaalayaal ka fogaada wixii dambi ku jiro bulshadana aan la qudro lahayn فضلا بالأحسان إسكنداية بربقاندة الوحدة كشادية إلهي بالنسية الجميل عقل أتكوش بسان كدان وحاتين ضد أقوال لباتين سحلالة دوش بسان كدان قف كستو ودن يرى وحقلا دردار منا إن أفكر سمعادي سيشرف كيسا سيدي أكو إلى شانها